sawaxankii buuqa maqlaysiin Ilhaan Cumar ayaa mar kale xalay ku guuleysatay madaxtinimadii horey u haysay mar labaad ku guuleysatay waxaana tahay Soomaaliga ugu horeeyay mar labaad Mareykanka xilka qabta mar labaad oo xiriir loo doorto aad buu farxad aad buu ilmeysay xalay way ilmeysay waa ujeedin farxada ka muuqato waxay ku guuleysatay ninkan 70 jirka ee madowga ay mar labaad ka guuleysay waa laba mar ay tartameen laba mar ninkan ay ka guuleysay 76 sano ayuu jiraa Ilhaan Cumar score ay dhigaysaa oo laba sano xiriira laba mar isku xigto xiriir ay Congress-ka Mareykanka laba mar ka noqoto madax ka noqoto oo maanta Soomaaliya way dabaaldegeen xalay oo xalay Minnesota maxaa laga maseexan iyo Mareykanka dabaaldeg Soomaaliya ugu horeeyay oo laba mar xiriira hal qof ka guuleysa waliba matalay calanka Soomaaliya ku guuleysa laba mar oo isku xigta talada dalka Mareykanka Congress-ka waa markii labaad oo xiriira Soomaali qaar aad bay u wadaceliyeen way ku farxsan yihiin in taariikhdan Ilhaan Cumar ay dhigayso ay taariikh aad iyo aad lumaar Soomaali ugu farxaan sababta waa gabar Soomaaliyeed ee ku guuleysay laba mar oo xiriira ay ku guuleysay madaxtinimada dalkaasi oo aad u farxsan maanta qeelaanta iyo buuqa yeerayo waa ayada ku guuleysay madaxtinimada aad buu u ilmeeysay khudbadeedii waxa kamid ahaa sida tan to the incredible volunteers, our elected leaders, and it certainly belongs to the vote. oo dadka ay si fiican u la hadashay oo si wanaagsan dadku la hadashay maartay si qiiro leh qof walba wixii ku salaantay mudnaanta uu leeyahay bas hoolka waxa dhex fadhiyay Soomaali aad u tiro badan iyo cadaan aad u taageersan Ilhaan Cumar kabtay lama gashan karo oo waxba laga qaban karo Congress-ka Mareykanka ay mar labaad madaxweyne mar labaad macnaha ay doorasho ku guuleysatay ajiib waay waa gabar Soomaaliyeed maanta sharaf ay noo tahay in gabar Soomaali oo magaceena matalaysa in mar kale ku guuleysato madaxtinimada dalka Mareykanka oo mataqaana u dhigantay anaga ma caaw ma soo ku hadli karo aniga ahaan deeqa ma hadli karo aad baa ugu hambalyeynaya Ilhaan Cumar waxaan leeyahay mar labaad mar saddexaad mar afraad mar shanaad soo noqo qofka adduunka Ilaahay laf dhabarka Soomaalida u ah waxtar kale wax qabad kale ina soo ceshato mar walba wax fiican waay anagana alla nagu ma fidneeyo gabadha masaakiinta walaasheena macaan aan garab iyo taageero u nahay xilka qaada alla kuma ceebeeyo anagana dadkii magaciisi qof kasta soo baxayna diyaara u nahay baalasha ku duulaysan anaka waa dadaalkan sameeynay waligan xilligan oo kale Mareykanka aadto caawal waxa jooga Ilhaan shaqadan ka haynay meesha Soomaali oo ku dhan oo iyo intii lagu laba mar xiriir ay ku guuleysatay talada dalka Mareykanka oo xiban ay ka ahayd qayb ay ka ahayd Soomaalida aad bay u farxeen halka Soomaalida gaashan ay u ahaayeen oo gaashan ay gabar ka dhigteen oo wax walba Soomaalida caqabadeysto ayada ay kala xiriiraan ayada ka imaartay ka caawisa xalay aad u dabaaldegeen way soo dhaweeyeen gabadhoodii oo guul labaad gaartay way ku farxeen xataa hadalka kar laayeen xataa oo farxad ay ka tabantay ayada ka dan ayada waa ilmeysay ilinta ay cisha laadahay Soomaaliya muuqaal qabta waa muuqaal farxad Ilhaan Cumar gabar Soomaaliyeed mar labaad oo xiriira ku guuleysay talada dalka Mareykanka muuqaalka meelkaasi adigoo aad maasan muuqaalka la shargareeyo Ilhaan Cumar haloo hambaliyo committee lagu soo qoro shargaree muuqaalka adigoo aad maasan xalay Mareykanka laga maseexan waxa la wixii Soomaali xalay dabaaldeg ay u ahaayeen oo hoteela ay kireyseen hal lama dabaaldeg farxad ayaa la qaybsanayaan gabadhoodii oo mar labaad xiriira ku guuleysay talada dalka Mareykanka aad baan ugu mahadcelinayaa hambaliyo Ilhaan Cumar oo mar labaad xiriira doorashada cod qof ku guuleystay oo waxa la ogaaday in ayada ay tahay qof wanaagsan waxa Soomaalida inta badan codka ayada siiyeen Soomaali ay codka siiyeen sababtoo ah Soomaalida wax badan ay u qabataa markii waxa Allah wixii caqabadaha haysan nacaasi oo dawladda ka haysa ayada ayaa ka xalisa war muuqaalka shargareeya hada badan hadan buuxso